gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa waxa uu ku qarxay meel makhaayad ah oo ku taala iskiiska Beexani gaar ahaan dhinaca degmada Shibis ee gobolka Banaadir qaraxa ayaa waxa ka dhashay ilaa iyo 3 dhimasho iyo 3 dhaawac ah oo mid kamid ah shaqaalihii ka shaqeynayay makhaayada qaraxu ka dhacay mid kamid ah shaqaalaha ka shaqeeya makhaayada Rajo ee uu albaabkeedu qaraxu ka dhacay ayaa uga waramay Star TV sida ay wax u dhaceen walaal bal waxaad meesha ku aragtay qaraxan dhacay bal inta meedeeda aragtay iyo khasaaraha uu dhaliyay aduu dadka goobjoogayaasha ahayd bal waxaad nooga sheegi kartaa walaalo wallahi meeshan dad badan ku laaday anaga gudaha ku jirnay shaqaalaha maqaayada ka mid ahaynay laakiin wax oo ciyaal oo meesha baawo ku tirtiray oo masaakiina iyo igar ko wadajiisa oo gaar meesha wax gada iyo dadkaas ku laadeen maqaayada khasaaro xog la gaaray ma anaga oo fiicna shaqaaleen hal aan ilaa waxna gaaray ma fiicna waan gartay Ahmed dadka inta ku jirta dhimashada imisaad indhahaagu ay qabanayeen wallahi ila 3 ruux ila 3 ruux waan gartay wax dhaawacana ma sheegnay hal nin ayaa wax dhaawac gaar bal shaqaalaha maqaayada ka shaqeyn kun meeshii yaalay buu ahaa waxa iska lahaa dad shaqaalaha meesha ka shaqeeya maqaayada iska laamiya qaraxan ayaa sidoo kale geystay burbur hantiyadeed baabuurtan aad arkaysaan waa baabuur yaalay meesha qaraxu ka dhacay sidoo kale waxa uu qaraxani saameeyay dhismayaashii ka dhawaa goobta qaraxu ka dhacay si kastaba haatee qaraxan ayaa waxa uu soo galmaya xilli maamulka gobolka Banaadir lagu wareejiyay ammaanka magaalada Muqdisho waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay socday hawlo uu ku xaqiijinayo maamulka gobolka Banaadir ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho محمد عبد العثمان محمد فردير تيفيق عالمي ستار مقالة مقدشو